gogosha ay shinida fidisay waxa ka soo qayb galay dhammaan afar lugoodley iyo laba lugoodley baaleyda waxayna go'aansadeen in ay xukuumaddu ay dhistaan oo xukuumaddaas ay noqoto mid run iyo cadaalad ku shaqayso isla markii waxay doorteen guddoomiyihii baarlamaanka guddoomiyihii baarlamaanka waxaa loo doortay qalowle wuxuu yidhi si degdega madaxweynuhu ciddii uu tartamayso farta ha taagto waxaa markiiba maroodiga gacanta u taagay wayel baa gacanta taagtay dawacaa gacanta ka taagtay wayelow adiga maxaad maroodigow maxaad adiga aad madaxweynimada uu tartamayaa yidhi wuxuu yidhi dadkan dibloobay oo diintooda ka tegay oo darajadu iska dilaa dawaagtu wax ma dooriyaan duurka may soo galaan allah daa'im weeye maroodiga waan ka qoray wayel baa soo bodo waxay tiri qalbi qarxay qaran dumay qori lala wareegaa kursiga aysan barka wadaagnaa kasaarar ma qabno qadada waa helnaa waan ka qoray dawacaa soo bodo waxay tiri cilmigeygii casharada waad qaadan wayseen dowdad baa idinku jirto cid baa isu dishaan asiidkaad caabudi wayseen ciiddaa idinka xarootay caalamkaa idinka sabrey waan cararayaa cagtayda gudoomiyaha baarlamaanka yidhi cararkaaga ma ogi shirka waa loo dhan yahay fadhiiso dawacay ee si degdega madaxweynaha loo doorto bararafsii loo lahaa maroodiga madaxweynaha la yidhi wayelna ra-iisul wasaare wasiir gaashaandhigga harimacas arrimaha dibadda shabeel arrimaha gudahana waraabo boosta isgaarsiinta gorayada gerigana warshadaha shaqada arrimaha bulshada daanyeerka korowga qorshaynta guumayska diinta arrimaha garsoorka duucada waxbarashada daa'uuska dalxiiska uurayska maaliyadda dhismaha guryeynta aboorka ciidka xanaanada xoolaha gorgorka gaadiidka cirka gaadiidka dhulka dameeraha wasaaradda beeraha garanuugta weerwere warfaafinta idahana caafimaadka macdintii biyaha looda badday dekadaha geela dabacaddeeya madaxtooyada ganacsiga unfada wasiirka xukuumadda baarlamaanka gaduudane wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dowladdii xukuumadda intaasay